markaad dabacdid inaad wax qabatid waxaa ku hor istaagayde xasaanad ma lihid shacabka kama duwanid laakiin waxaa sir haddaad aqoontaadi iyo khibradaadi iyo dhexgalkaagii aad xasaanad ku darsato ama aad bari wax ka bedeli kartaa Puntland wax ka bedeli kartaa Soomaaliya wax ka bedeli kartaa waxaa igu lahayaa inaan wali qof intuu ii yimid yiri farxiyo kursi raadso oo inaan qof waligi soo dirin ama dawlad ha ahaado ama NGO ha ahaado ururaha dadka dirsado ururaha jira ama shirkado أنا وشركات كم ترسني قبيل كم ترسني كوح كم ترسني لكن ما حكون ترسنا هاي أقوياء كقولت اللي بتطابطه أنا وضع شرنا ده دفت أصعد على المحن وحنا كره وسير إن رادين حلوان إن رادين وتلفون كود حرين هاي بروح نسير ورها هدين إن نقول افتكار ونقولنا تذكي وحرادين لها تذكي الله مارك الله ما المرتضى اللهها تالبابكين الأفريه أمي في عنال هاي مركب مهمة الحقوق اللي سوحتها هاي ضيع عن جره إلى أن عندنا مرتبط النقل أنا جنا مركب waxyaalaha iyo qorshaysan waxay tahay inaan anigu noqon farxiyo ahaan qof maantay maxay ahayto albaabka xiranaysa inaan noqdo qof albaabada garaacaysa in qof waxbarashada raadinaysa caafimaadka raadinaysa ma ahi qof raadinaysa dawo inay idin keento buugaag inay soo dhiibto seminar inay dad siiso laakiin waxaan rabaa wax walba sustainability wax la dhahaa adduunka lagu xisaabtama laguma xisaabtamo NGO ba wax soo tuuray laakiin aniga waxaan rabaa inaan dadkan tuso aqli waaleedihin aqoon waaleedihin cilmi waaleedihin hantina waaleedihin tiina inaan idinku daro aniga oo xasaanadii haysta inaan waxaan dawlad ka soo qaadi karo waxaad idinku ku darsan kartaan waxa aqoon-yahankiina ku darsan karo baan waxaan rabaa inaan ku shaqeeyo ma ahan anigu inaan waxyaalo dhamaanayo oo de qof wax leeydi macaawino meel idinku keena way dhamaatay laakiin xoogiinana inaan idin tuso xasaanadiina aan albaabada leedan ka xiran oo aan madaxweyne idin geyn karo ra'iisul wasaare idin geyn karo wasiir idin geyn karo meesha idinkaga jidhaba aan warqad inoo ka soo saxiixi karo waan anigu ballan qaadaya laakiin ma ballan qaadaya inaan laba daaro intaan meel ka dhiso haddaan doono aan alaab keenin aan dhaho maalin baan laba qol idin dhis mana ballan qaadaya anigu inaan dhaho wiil baan maalin jaamacad u diray laakiin waxaan rabaa inaan dhaho aan war xoogeena in aragno midda kale waxaan rabaa aniga inaan xildhibaan halka iga horeeyo oo aqalka sare tagay gacanta qabsado inaan hadii wasiir kale soo baxo ama wasiir la yiraahdo gacanta qabsado inaan agaasimayaasheeda gacanta qabsado annaga oo family ah oo duulayna wax wada raadino laakiin aanan qolol soo xiran oo waxa way teamka ma arki karayo teamka hebel baa wata aan leeyahay anigu teamna kuma jiro waxaan ahay qof dah furan aan teamna ku jirin oo xor ah oo xalaal ah aniga marka qof kasto albaabkayga soo garaaco oo reer Puntland ah waa ka furaa inta ugu badan oo ila shaqeysaa waa agoon iyo masaakiin waliba anigu dadka iska gadgada dadka sare oo hay galaaska ama ahi laakiin markuu ii yimaado qof oo CV kan soo dhashaqaan rabaa qof kalena ii keeno CV kan oo dhashaqaan rabaa hebel baa ka soo horeeyay hebel baa ka lacag badan ma dhaho waxaan fiiriyaa labada kiilita hadda saaxiibaday waxaan malaynayaa Aasiya Cismaan way fadhidaa CV bay ii keensatay waxay tiri gabadha ii shaqo gali waxa ay timid ayadana gabar kale oo waxay ruqay faarax muuse gabadha shaqo iigu raadi anoo labadii hayaba waxa ay yimid laba gabdhood agoon ah ayagoo taagan baasiye markaas aan wax shaqadeeysan labada gabdhood agoonaha baasiye because of waxaan dareemayaa gabdhahoodu inay wax barteen aqoon leeyihiin ehelna haystaan ay bariiski maartay ay ka fakareen laakiin shaqo rabaan laakiin kuwa kale inay bariiskoodii raadinayaan anigu albaabna idin ka xiran maayo groupna ma ahi waxa way xataa dadka gurubyada kale wata albaabkaygu waa u furan yahay haddaa rabtaan cali salaaman caafimaad qaba isu yimaada maxay ahaytooy hal meel wax ku wada caba hal meel wax ka wada raadiya cali salaamanimadii la arki jiray ay soo noqoto dadku waxay leeyihiin cali salaaman isma qaadi karo waa balaartay oo kala go'ay adar kursiga labada kursi waa ina ka dhaxeeyo ma kala go'i karee bahasha aynu raato iyo qortan hawsha tan ka baxno baleen u fariisano kala go'i meeyna ee si hufan oo nadiif ah wuxuu siino waliba kuwaan keen isku dirin oo idinkoo dhan idin dhaxaya siiya intaad cid u kala xagin lahaydeen aniguna waxaan aaminsanahay inaan ahay dabaysha caafimaadku idin dhaxtii maantay aad iyo aad u mahadsantihiin reera toban oo gabar u timid oo maanta ayaan waligeed gabar soo martiin oo 6 dhimaan leh 3 Puntland leh maxay ahayd mid federaal leh mid maxay ahayd Jubbaland leh maxay ahayd waxay leeyihiin wasiir afar wasiir oo maxay ahayd Puntland wasiir federaal oo aan hal gabar ku jirin horta waacay waxa la reeru gabdho malamiya gabdhood ma goombaara ma waxa xilaasan karin ba anaga waana caawaysan maanta mar haddaan anoo gabar idin hor imi oo idin ka codsado cimaamada igu tuuro codka isiiyo oo dhaha gabadha ayaa la tartay
سياسيين تصاهر إنه ولقنا إن العقاش نديدنين أقوياء كلنا نديدنين لكن سياسي وإسبارنا ونكتب عليه من ناقب أنا بتشعل سلوان ناقب ما أركي كران يان أنت الدولة أو تقول ناقب ما أركي كران يا ناقب نسومر مركب وحويان سياسيين توحوا شيئنا واحد هيسين الله يدوم كان فوق كان ما أنت قبر بكوها بستي خير الله يدين سيره ولا ملاين ما يواجه واحد يجي قبله ريركود هذا يقول دباد دون ثاني لما قديو دوانت ويدين صو دباد دون ويدين صو قبل دكتور أولي وحويان سفي عن بان مركب حربا إلى ذي نبرك يقدر يجينا هذا يقول على لسانه قبلها أصاغي وأنا كلام لا ترتنو هل كان يقدر هذا ما سنت